maxaa is leedahay tiirarka asaasiga ah ee ka saacidi kara qofka in nolosha aabanimada uu ku guuleysto kow iyo laba maxaa ah is leedahay fiirarta waxay ka bilaabataa aniga waxaan idhaahdaa dadka aniga waxaan u sheegaa Soomaaliya marka qoysaska aniga aan fiirsho waxaan darsa aniga maxaa horta la isku qabtaa markii fiiri dadka Soomaaliya aad furiinku u dhacaa aadana la isku qabtaa ruuxi marka raba inuu qoys najax sameeyo waxaan uga sheekayaa aniga waxaan rabaa waqtiga nolosha qofka inuu naftiisa ku cabiro aniga waxaan guursaday 80kii ayaan guursaday markaasaan waxaan qaatay markaan guursaday sababta kale ayaa waxaan noqday mijir waxaan noqday gaashaanle markaan gaashaanle guursaday oo ka imiday marka la ka sheekay doonay oo ka imiday Mareykan ka imiday waxbarasho ka imiday Mareykan oo ka horna maaragtay qasa dheer waaye dalka Soomaaliya ayaa mashruuc waxaan ka shaqay jiray runtii dalka hub loogu sameeyahay sawaariq loogu sameeyahay anigu aan ka aajiray injineerka ah marka waqtigeeda kale ilaahay hadda ma aha markaan guursanay anigu waxaan isweydiiyey guurka naajixa ah waa 80kii maxaa guurka naajixa maxaa shuruud uu leeyahay marka shuruudiisa waxaa kamid ah maxaa Soomaali isku qabsataa ila fahamto Soomaalidu waxay isku qabsataa markay qoys yihiin ninka ayaa wuxuu rumaysay guriga inuu iska leeyahay guriga marka waxa wax kule ninka walaalihiis iyo aabiis gabadhan la soo guursata marka gurigaan marti camal ay ku tahay ninkaana guriga iska leh aabaheeda hooyada marka ay walaalaheed marti ka yihiin saas waa magtahay marka aniga waxaan fahamsanaa arintaas waa la isku khilaafaa marka aniga gabadhan guursaday ilaa hadda aan isqabno waxaan ku yiri gurigan horta adaa iska leh adaa boqorada gurigan waa adiga aniga gurigan adiga qofka aan rabin ma soo galay qofka tartana waa soo galay aabahay iyo aabaha waa u sameeyeen hooyada waa u sameeyeen walaalkay waa u sameeyeen yaa ma garat qof aan rabin kama soo galay adiga ka baka guriga marka horta waxaa rabaa in la fahmo guriga hadaad aysan maxay xukumeeyaa hooyadood maxay xukumaysaa gurigeeda xukumin oo gurigeeda ku xukumaan wiilasha walaalaheeda ama gabdhaha la dhashay ninka hadda guriga ku xukumaan ayana guriga walaalkay waay ay yiraahdaan sharaf ma yeelanaysaa marka dignity koobaad qofka koobaad waxa waa horta gurigan yaa iskale guri hooyo waxa iskale hooyo xaasa iskale marka ninku lama rabo inuu guriga ka dhago inuu iska leeyahay inuu marta ka tahay qodobka kaas oo lagu diraa qodobka labaad lagu diraa waxa waaye xoolaha ninkan waa baxaya asoo shaqeynaa Soomaa gabadhan ma ba shaqeysado guriga bi joogtaa waxa la leeyahay ninku wuxuu isku haysaa inuu shaqeeyo gabadhan ay shaqeyn gabadhan waxay shaqeysaa habiye maalin ay shaqeysaa caruur ay dhashaa asay u kacdaa cunta u karisaa dharkiisa dhaqdaa guriga ay nadiifisaa shaqada ay qabato shaqa la mid ma jirto waaba nafta ka baxda gabdhaha Soomaaliyeed full time job waay marka kale leeyahay ninka wuxuu isku haystaa isagoo inuu soo shaqeeyo ayaduna ayaa shaqeyn marka lacagta uu shaqeeyo wuxuu u malayaa inuu isagu shaqeysto ma oga inay shirka kula tahay ayaduna waa shaqeysaa adna waa shaqeysaa adigu banaanka ka shaqeysaa ayaduna gudaha ka shaqeysaa shaqada idin qaybsan Soomaa marka horta waxaa la rabaa ninka inay fahmaan in shaqada hooyooyinka guriyaha ay ka hayaan iyo shaqada u banaan ka hayo shaqada hooyooyinka guriyaha ka hayaan badan marka waa wada shaqaysatiin waxa soo shaqaysata waa kula leedahay martakaaga ma aha marka aniga waxaan sameyn jiray lacagta soo shaqaysto aydan u dhiibi jiray bal adiga noo maamul ana waxaan ku fala maamulkeeda fala bal isqabana marka in badan dumarku marka waxa waaye maadaama lacagta laga qarsado ayaduna waxa waaye masruufka la siiyay ay kala qabaysaa bada mushkilada Soomaa tuuga bare marka xaaskaaga tuuga bare inay lacagta meel dhigato amba kalsooni ku qabtay waa isla dibirta ku faraa wax uun dahab ku gadato amba si yeesho meel dhigo waa meesha dhabarta ya ay bas raadin ijara raadin marka waxa la rabaa kalsooni in la siiyo waxa la rabaa dhalinyarada guriga ka guursanaya waxa la rabaa gabadhihiin hadda wax mutacalimiin in badan kamada naqdeene
waxay soo shaqaysay waxa soo shaqayso bas leedihiin ya yey ku gutumina lacag meel ku qarsanayso hadaad lacag meel ku qarsato ayadana walahay meel ku qarsay soo qodobka labaad baa qodobka saddexaad uma leh ma dadka inta badan inay samay karaan laakiin waa samay waxaan ku uri waxa waa hadii ilaahay adagana caafimaad ku soo caafimaad siiyo oo caruur dhalayso aniga ma kula guursanayo marka waqti ma haayo aniga aan ku mashquulo naago marka adiga waxaad yeelaysaa haddaan kaa maqanahay haddaan shaqo ku maqanahay maskaxda iyo soo gelin ninkii naago ku maqan yahay iyo naago kala guursanaya insurance aan siiyo marka inta badan naago marka waxaa waaye nimankooda markay waa isleeyihiin naago kala guursanaa kaas ma hubo hadduu lacag badan helana iskaba jecel hadduu lacag badan helo lacagta inuu lacag badan helo naago ma jecel nimankooda waxaa jira nimanku markay lacag badan helaan naagay guursadaan taas ma taha lacagtana ma oga oo ayada lagalama tashan marka qodob waxaa waaye naag kale kula guursaha koo gaaraha markaad weliba duqowdo ood weynaato aa ka daran caruur dhasho qodobna waxaa waaye xoolaha haystaa xoolaha lama lihid mana kuu sheegaayo xoolaha haysto midda saddexaadna waxaa waaye guriga adigu ma lihid ninka ciddiisaa iskale saddex qodob soo maha hor saddexaad qodobaa lagu dagaalamaa ma iska dhaafi kartiine dhalinyaradu ma iska dhaafi kartaa aniga yani waa adagta aniga iska dhaafay saddexdaa iska dhaafay marka aniga lix wiil iyo gabar ayaa ii dhashay islaantaas mogtahay xaaji muxub baa la yidhaahdaa magaca xaaji muxubo aniga naag lama guursan anoo 5 sano ka maqnaay musaafir ayda ilmaha korsanaysay kanada markaan tagnay waa kasoo tagay ayda ilmaha haysay Soomaaliya ka shaqeynay ayaa idoo isma dagaalam wiligeyn maxaa yeelay waxa waaye aniga qaacidada sandijiiba ku socotaa waxay su'aal ka imaanay qodobka ugu dambeeya oo ah in gabadha kalsooni la siinayo la guursaday sidee horta as leedahay marka hore gabadha waa lagu dhaadhici karaa oo kugu aaminaysaa inaad la guursato ma kugu taqaan sheegta la rabo runta inaad kugu barato waxa la rabaa inay fahamto kalsoonidu ay inaad ku sheegayso fahamto mar haddaad marka xoolaha lacagtan aad shirka ku tihiin gurigan ayadu ay leedahay waa inay waxay kugu aamini kartaa marka inaad ku qanacdo waa dad badan inta ku qanceen waxaa jira xataa waa ogaa aniga dad badan 20 sano islaaman ay isqabeen oo caruur aysan dhalinin oo yani kalsooni badan ku qabto oo marka dambe 20 sano ka bacdi yiri islaaya adiga caruur ma dhalisidii naag kale guursanaya iyo kuwa ka qariyo naag inta guursaday marka ka bacdi aragtay idoo caruur waaweyn dhashay waxaas way jiraan laakiin waxa uu sax waa in la iskhayaan oo runta la isku sheego rabaa taas ayaa kalsooni abuuri karta laakiin haddii khayaal la isku barto iyo beerta la isku barto kalsooni